وهاجاك داوديال sheekada dhahaysa Donald Trump mass deportation ayuu sameyn doonaa sidoo kalena wadanka wuxuu gelin doonaa xaalad degdeg ah national emergency declaration ayaa la sameyn doonaa si loo isticmaalo resourciga Pentagonka militarigana loo isticmaalo si markaasi dadka sida sharci darada wadanka ku soo galay dib loogu celiyo militariga loo adeegsanaya ayaa la yiri okay maxaa ka jira warkaasi horta guud ahaan Donald Trump warkaasi agtiisa wax ku cusub ma ahan waa wax uu soo dhihi jiray oo uu dhihi jiray waan isticmaalayaa militariga saas ayaan samaynayaa mass deportation ayaa sameynaya uu soo dhihi jiray aan ka soo tagna marka waxaa warkaasi shaaciyey nin la yiraahdo Tom Donald Trumpna uu sheergareeyay bartiisa Twitterka ayuu ku soo sheergareeyay wuxuu ku qoray true ayuu ku soo qoray warkaasi sidoo kale last week waxaa shaaciyay ama baahiyay CNN TV-ga CNN ayaa shaaciyay in sirtaasi ay soo heleen oo Donald Trumpna uu doonayo in wadanka xaalad degdeg ah uu geliyo si dadka wadanka ku sugan ee sharci la'aanta loo celiyo haddaba easy ma tahay in la sameeyo marka ujeedadeedii waa tan marka ma fududahay weeyaan maya ma fududa in qof inta la iska soo qabto wadanka laga saaro why because qof kasta dastuurka qoraayo dastuurka Mareykanka qoraayo in qof kasta wadankan ku nool sharci ha ku joogo ama sharci la'aan ha ku joogo uu xaq u leeyahay inuu maxkamad maro haddii maaragtay wadanka laga saarayo so sharci la'aan ahay tusaale ahaan waxaana maaragtay la rabaa in la iga saaro wadanka waa inaan maxkamadi helaa maxkamad waa inay go'aan ka gaartaa taasina ma fududade way adkaanaysaa also organizationno waaweyn oo waxaa jiri doono oo lawsuit samayn doono oo hor istaagi doono so Donald Trump rabitaankiisa waxa ka weyn organizationada iyo lawsuudyada iyo maxkamadaha iyo legalka uu mari doono laakiin wuxuu u fududahay Donald Trump in uu kala tuuro oo wadanka ka saaro kuwa wadankoodii dembiga ka soo galay iyo kuwa wadankan Mareykanka dembiga ka galay laakiin qof dembi aan gelin nadiif ah in la qabto maxkamad la'aan la tuuro akhli ma noqonayso in la isticmaalo ciidanka federaalka militariga la isticmaalana waxay u baahan tahay also Congress-ka in la soo maro ayay u baahan tahay inkastoo uu dhahayo national emergency declaration ayaan sameynayna marka ma fududa guud ahaan wax fududna ma ahan dhalinyarta soo boodayo waxaa idin leeyahay niyadda qaboojiya xaalad fudud ma ahan mar walba maxkamad ayaa go'aankiina ugu dambeeya iska leh ilaahana go'aankiina iska leh waa mahadsantihiin